wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka gobolada iyo degmooyinka ayaa waxa uu xilka kala wareegay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Awdal sida warkaan inoogu soo diray wariyahayaga Sharbiyare xafladda xil wareejinta madaxweyne Siraayo magacaabay barasaabka Daadmadhe iyo barasaab ku-xigeenka cusub ee gobolka Awdal loo soo magacaabay Cabdi Nuur Sugaal munaasabadaasi oo ka dhacday xarunta wasaaradda qorsheynta ku leedahay magaaladaasi Boorama ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland isuduyaasha kala duwan ee laamaha dawladda iyo maamulka degmada Boorama waxaana labadaasi mas'uul xilka u kala wareejiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan arrimaha maamulka degmooyinka iyo gobolada intay munaasabadaasi socotay oo halkaasi hadallo kala duwan laga soo jeediyay ayaa waxa hadaladii goobtaasi laga yidhi ay u dhaceen asidatan barasaabka Daadmadhe waa si sagootiina gudoomiye ku-xigeenka cusub ee gobolka oo run ahaantii nin khabiir ah oo gobolka dhowr iyo 10 sano ka soo shaqeeyay loona baahnaa aqoon way aragnimo intaba u leh hab maamulka gobol waan ku soo dhaweynaynaa gobolka Awdal madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiye ku-xigeenka cusub ahna kusimaha barasaabka gobolka Awdal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo magacaabay waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow waan ninkaan ugu jeclaa inaan xilka ku wareejiyo waan soo dhaweynayaa run ahaantii kolley dardaaran badan siin maayo kolley maanta xilka lagu wareejiyo gudoomiye ku-xigeenka aan bedelayo Axmed waxa loo dhiibay barasaab waxaan leeyahay isagaan u duceeya inuu Ilaahay ku asturto waanan ku hambalyeeynaya barasaabka loo dhiibay waxaan leeyahay Allah kugu asturo barasaabka Daadmadhe Allah kugu asturan qulahay anigana Allah igu asturo ku soo dhaw wasiir inaad cadaalad ku shaqeyso tala saddexaad waana noqotaa qof maalintiina ummadda u shaqeeya habeenkiina Ilaahay u shaqeeya hadalku ma badna waa laba mas'uul oo isbedelayo وانا حل wareejintii ugu quruxda badnayd ee aan goobjoog u ahaa hadal wanaagsan iyo marxaati fur wanaagsan ayaa dhacay waxaan la ku taageersanahay aqooni inta nin walba yaqaan waddan ka warramay anigu labada ninba waxba ka aqaano labadaba ninba inay yihiin laba nin oo doorashadii madaxweynuhu doortay uu la helay halkii ugu wanaagsanayd waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha sida wanaagsan ee uu gobolka midna u dalacsiiyay mid hore oo ku gaboobay wax walba garanaya oo dadku jecel yihiin nin meesha ku gaboobo dadku jecel baa jiray qof aan saakay oo dhan wax walba uu garanaya uu si hayn karaya xilka marka gudoomiye tagay gudoomiye loo baahna magaalada inta soo maray dhan maanta si wanaagsan baa loo ammaanayay adiga intaas ku filo horta idan kale Ilaahay xilka idin fududeeyo annaga xilka Ilaahay loo fududeeyo wasiirada ku u baahnay la duceeyo intaasi kadib waxaa si rasmi xilkii la kala wareegay barasaabka cusub ee gobolka Daadmadhe Axmed Diiriye Cabdilaahi hore uu ahaa barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal iyo sidoo kale barasaab ku-xigeenka cusub ee gobolka Awdal madaxweyne Siraayo soo magacaabay Cabdi Nuur Sugaal oo in ka badan 10 sano hore uu ahaa barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal balse mar kale madaxweynuhu adib aw soo cugtay Maxamed Xasan Sharbiyare Somali News magaalada Boorama